برقي ودوينك لبنين يعقف تومات شيرين أقول ورمه ما أنت وضبكنا قبصدين سكدن كيدين عنك حيجنا واقفتي ككلادين عنك حيجنا واقفتي أقول والله هو قياس ملء ننوان نن ألاتي سيدك تكو قادني أنت إيرك جدارة تعال اللي بدأ الدرسين أي نول بقوا بتبعد هانتي ده سومال نادم ما مشي كوبا بعضي سوقي واحد سوق حي سوق أنوها جناح سوق بدن لقى قادي الدب هرجي سوق سود البنت بخارج كونه هاين markii meeshaas hadda story bakhaar bay ahayd wixii buu wataa weyn deys waxa dilay magaalada waxa weeyaan booyad la'aanta ma aha ciidanka dandamisku heegan ayuu ahaa inuu waxa weeyaan damiyo iskaga noqdo markii baan markaa arkay meeshii gubato dadkii kale alaabta ka gubatay ayuu ma la gurnaba dadayadina waa u shufashbay shalay dad daragsanaaban maanta waxa ku casheeyaan haysan dawaadna arkaysan sidaanu nahay stoorkayna waa ka soo daba jeeda saddex darsino kooraan kala baxay guriga bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim masiiba aad iyo aad culus baa garan mayno dhinacna nooga yimid garan mayno dadkii guriyaha ku jiray baan ka jawaabay meeradaas ii jeeday inankii ku jiray meerada xuboor maxaa uraya safarkii u weynaa shalay buu soo galay daraad hantidii u weyneed ee Soomaaliland waxay timi saddex shugdood waxayna sii dilay suuqan bir weyn oo loo sameeyay jiingada xagga sare taasa keentay inuu dabku fido oo ku fiday ilaa sikadkiisa raxmatullaahi wa barakaatu daweydinka arkay magaaladii wajaale ganacsiga ahayd siday u baaba'day dad baan waxba u harin dad baan waxa la waxay hayaan saaka jirin dad baan waxa la waxay caaw ku casheeyaan haysan shalayna tijaarinaha hanti haystay dawaad arkaysaan jaaliyadaha Mareykanka jooga kuwa Yurub jooga midabka Afrika cid waliba dahaw soo gurmatay magaalada wajaale waad arkaysaan xaaladoodu say tahay dadkii way baabaasan yihiin hanti ma haystaan badan baa magaalada ka dhacday masiibooyinka aad u fara badan baa dhacay ilaahay waxa ka rajeenaa inuu waxa dadka ka soo gaaro dabka soo noqnoqonaya magaalada wajaale uu wareeriyay waa markii saddexaad buu maraya maanta ugu dakhliga gubto ugu badan yahay alxamdulillah rabbil alamin waxba kama qaban karin iyadoo gubanaysan saa u arkaynay ilaahay caawil khayr qabo ka fiican na siiyo dadkaana waan la qabnaa walaalaha iyo jaarkayagiya kaligeena ma guban bakhaaradu ciid ka badan imaan tirin wali anigu hantidii jilmadna way wada haayeen bakhaaradu mid store iyo bakhaar ahaa iyo mid bakhaar kaliya ahaa labadaba way gubteen qaar store iyo bakhaarada isku raaceen way badan yihiin inta badan majority waa bakhaar iyo store israacay marka wallahi wax nimco badan baa ka dhacday meesha ilaahay khayrkeeda iyo caawinaqeeda hana siiyo horta bas marka waxaan ka codsanaa dawladda jeerka ama dawladda Soomaaliland madaxweynaha Muuse Bixi in magaalada biyakeeda loo sameeyo buugakeeda loo sameeyo meelaha macdaasho dhowl ay dawladdu soo digto oo kayd loo sameeyo u baahanahay marka dadku maanta gacan weyn baa ku dhacday dalka gargaarkiisa kala yar ururinay wixii aan ciidan horgeey lahayd ama dad horgeey lahayd baa kan laga gubtay waxaan u yimid marka meeshiyo ololku saxray gabigeed buu qaaco qariyay marka xagaasan ka soo galay dhinaca waan soo wareeg waxaan saxan ka soo wareeg dhinaca kale waxaan ka iyadoo ay ololkiis qabsaday waana soo noqon adigu markaa wax kamid tahay dadka aan waxba nooma bixinaa wax noo bixin ma jira hantida meesha talentay laakiin aduu hantida inta laakeed baa waxba kama harin ba waa tan si leedan karto saanaanaya ay dhigeyso koorarkayguna maxaan ku saddex darsin oo koorara ayaan meesha ka saaray iyo laba darsin oo kaba ah alxamdulillah rabbil alamin ilaahi siiyana waan sugayaa in ilaahi maxaan ku dhahdaa wax kale oo khayr qaban noogu bedelo insha Allah bidnaahi karim labadii meherood aniga midna waa taa soo markaysid baalka diltaagay soo bannaa soo markaysid wataa labadaa weeyaan haa anigana maana dad badan baan hayno dad shirkadaanu hayno maxaan ku dhahdaa ayay dee wada maxaan ku dhahday halkaa ay aan maanta waxba ku wada haynin ka dhacday magaalada Wajaale waxaan aad uga tacsiyadeynayaa ganacsadadii shalay taajiriinta ahayd yoomkan saakana aan waxay u hariyaan jirin waxaan leeyahay Wajaale waa deegaan aad Wajaale ganacsato lagu xisaabtami jiray magaalo ballaaran bay ahayd waxaan dadweynaha ka codsanayaa Soomaali meel kasta oo ay joogto inay ka soo caawiyaan masiibada ku dhacday magaalada Wajaale aad iyo aad baan ugu caawinayaa cid kasta oo soo gargaari karta inay soo gargaarto hantiilayaashii magaalada Wajaale aan ahayn magaaladu aad bay u gubatay dadka in la soo caawiyaan aad iyo aad u mahad celinayaa mahadsantii ku bilaabmay abaaro 7 barkii salaadii maqribkii laga baxay waxaanu ka bilaabnay halkan inta ka yar halkan ku yaala wallahi walaalde waa dad maanta saameeyay suuqa ugu weynaa geeyga Soomaalida ee Wajaale kaas oo ay ku kulanto bulsho aad u badan maanta may guban hantidii reer Wajaale laakiin waxa gubatay bulsho weynii Soomaalida hantidoodii
waxaa jiray dad badan oo ku dhaawacmay iyo dad ku magaranaysaa ku hanti waayey horta waxa waa qadar ilaahay qadaray oo magaranaysaa ilaahay isagayna siiyey isagana ayna siin doono waayo imtixaankan waxa la rabaa in lagu samro laakiin bulshada wajaale waxaan u soo jeedinayaa daacan ahaan damiska in bulshada wajaale ay hesho damis xaq ay hesho waayo xalay damiska ugu horeeyay wajaale wuxuu magaranaysaa saameyn ku yeeshay inuu dabka sii fido waayo in loo sameeyo biyo kayda loo sameeyo ciidan tababar leh magaranaysaa waxaan u mahad celinayaa walaalaha dhammaan bulshada weynta la shaqeeyay magaranaysaa alaabtii iyo hantidii qaarkood badbaadiyay dadku waxay noqotay dadkii meherada wax ka uga baxeen nin laga daba qaado iyo nin magaranaysaa maxay wax ka gubtaan nin wuxuu baxay iyo nin magaranaysaa maxay wax laga daba qaado marka waxaan biyo wajaale magaranaysaa dababku aad bay noogu soo noqnoqdeen waxa la doonaya magaranaysaa dee ilaahay baa wax walba haya qadarkana haya in laga taxadiro oo laga foojignaado shaduna ay ku dadaasho magaranaysaa maxay shirkadaha ciladaha laydhadhka waxayna sii dilay suuqan bir weyn oo loo sameeyey jiingada xagga sare taasaa keentay inuu dabku fido oo ku fiday ilaa sikadka sikad musiibada dabka horta wuxuu ka bilaabmay masaajidka hudaagtiisa dabku markii ugu saxaas ka bilaabmay dabka waxa qaaday waa fooshadahan isku xidhay harka laga dhigay ayaa dabka qaaday imika sikadaas may guuna wadiga arkaya fooshadaasina way gubatay dabka waxa qaaday xagga sare maadaama hawo helayso fooshadu xoog raacay marka fooshada dabka qaaday dabkuna dabayl baa jirto xaggan uu waday suuqa intii ugu ganacsiga badnayd bakhaarada ilaa Soomaaliya ilaa Hargeysa looga qaybin jiray halkan ahayd oo halkan looga qaybiyaa marka santarkii waxa ahayd bakhaarada wax looga qaybinayay santarkii baana maanta gubtay hantidii Soomaaliya dhammaan meesha ku baabaaday suuqii waa suuqan waxa ee ganacsiga ugu badan laga qaadayay ee dib Hargeysa uga soo dalbanaysa bakhaarada kuwan ay haayeen waa samiriyeen oo qadar Allah meel loo dhaafaa ma jirto ilaahay inuu cawd khayr qaban ugu bedelaan rajeynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaal horta musiibada dhacday isha arkayso isha macalino waxaan halkan aan uga duceynayaa dadka ee alaabtoodii ay ka gubatay inuu ilaahay cawd khayr qaba ugu bedelo musiibo qaran baa dhacday walaal maxamed jubba walaal maxamed ilaa imsa meheradood baa ka mid ahaa meheradaha reexa sacawkay marka la saddex meheradood oo aanu meheradahana berigii wadooyinka la jeedjeeday waa tii la qaybiye ee la yaryareeye markaa 5 albaab ayay haayeen waxaa kan 5 albaab ay haayeen walaal 5 albaab shanta albaab hantida albaabka ugu weynina ka kornu waxa hantidu waa barakaatu horta meesha mashaqo xun baa ka dhacday xalay mashaqada horta gelin dambaan aanu imitiyo dabku umarayo halkaa dahablaha oo sakadan oo dhan ay gubatay ayaa soo galay meesha halkaa albeerkada ayaan istaagnay waxa meeshaad qiiq iyo uuro iyo waxa isxidhay dabdamisyadii soo gurmadka markaa kuwii xaggan Itoobiya inooga yimid baa horta waantaba lahaayo dabka gaashaamay hareeraha ka joogsaday markaa musiibada ka dhacday doortaan dadkii meesha alaabtu kaga gubatay iyo ummadii meesha adduunkaas kaga qasbeelay ayuu man ducaynaa walaal salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaal musiibo qaran baa ka dhacday marka hadda musiibada ilaahay baa dadka gargaar kara anagu hadaan xoog iyo waxaanu haynay wanu ku gargaarnay dawladuna aad bay damiskuna uga soo qayb galay marka nimcadaas ilaahay baa qoray wax ilaahay qoray baa ayaa dhacay wax kale oo la qaban karaa maanta ma jirto tala ilaahay baa u saarnaa wixii ilaahay farash khayr qaba ilaahay dadka hantida ugu bedelo waa dadkeenii wixii xoog iyo ninkii ku gargaaray baa xaq ilaahay buu keenaya intaas ma walaal loo odhanaya wad maasanta muxtaar abdiwali muxtaar ma wax kamid ahayd ganacsatadii goobta mise dhalinyaradii iyo bulshadii nayo dhalinyaradii soo gurmatay bilowgii wariyo markii uu bilaabmay dab ku yimid ayaan kamid ahaa waxaan isleeyahay dabeetana dib uu soo baxay marka maamulka magaalada waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha mudane muuse biixi cabdi inuu booyadaha noo soo badiyo maadaama dabkii saddexaad uu yahay kani safarkii u weynaa shalay buu soo galay daraad hantidii u weyneed ee Soomaaliland waxay timi 3 cisho gudahood saa markay u timiday imika bakhaarka afar gaari baa lagu rogay soo jeeda kan iyo stoorkii way isku xigaan iyo alaabta kii lagu iibinay isana in yar bay isku wada jiraan adoo hantidii dhanayd maanta waxaan ka idhaa ma garanayo qasaarna aakhiru jira insha Allah bidbillaahi kariim laakiin waan ka soo kabanayna insha Allah walaal waa qadar ilaahay oo nasiibo ilaahay keena weeyaan waxaan ka garanaynaa waxaan ka oran karnaa midna ma jirto maqribkii baan meherada ka dhaqaaqay anigu halka ku gubatay gurigeygii aan gaadhin waxa la igu meheradii baa gubanaysa
marka waa masiibo ilaahay keenay wax Allah raxmaanku naga cawdo na gubaya garan mayno dhinacna nooga yimid garan mayno dadkii guryaha ku jiray baan ka jawaabay meeradaas ii jeedaynankii ku jiray meeradu cubar maxaa uraya toogaa gubanaya lagu yiri marka laga ogay walaal waa masiibo ilaahay keenay hantida kaaga baabaaday aniga maaha walaashay weeye qofka meeradu kan taasanay walaashay weeye meerada ka gubid hanti intee leegad ku yaas ka shaqeyn darbay bin jirta bagaash bay soo dejin shiid iyo bagaash bay ku iibin jirta meeradini horteeda joogta far sax bal waxaad nooga warbixisaa hantida iyo qaabka u dhacay intaad wax ka ogeydeen leedahay wallaahi maan jooginay hargeysaan ku maqnayn laakiin waan soo gaarnay laakiin guryaha iyaga sida u badnaayeen 5 baa gubtay yaa waa gurigan waa halka guri ee taagan iyo iminka aan ku qabanayo ilaahay bee waa ka xaaraane berigii waddooyinka la badanayayna cagafta kumay dhufan maanta oo dabka masiibadii xalay toolana labadii guri ee dhinacyada ka xigay oo keliya ayaa gubtay isagii waa taagan yahay wadiga arkaya guriga ma garanaya yaa lahaa ota waarigo yaa lahaa waxaa lahaa odaygii dowladayay muxuu ahaa durucdii maxaa la idhaahdaa odaygii ree jigjiga durucdii ibi jiray ma cagoweyne may kii cagoweyne maaha cagoweyne waa kaarakoonnaha kale wallaahi cagoweyne waa kaarakoonnaha kale may isaga maaha qolo kalaale sakada waa sakeen xasil cawg waa kuwa guryaheegina guryaheegi waa kuwaa shishay bay haayeen kuwa koornaha dabkuna kan uu ka bilaabmay waa laakiin halka guri ee mucjisada ee aan taariikhda leh waa kan iyo muwarig masiibo waloo qabsata wajaale berigii macaan masiibooyinkii waddooyinka la babaneeyay cagabtuna muu dugin halkaasay ku ekeen ninkana waad iga arkaya